aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed xuseen warsame oo warbixintaasi inoo diyaariyey. weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii Hirar iyo Hargeysa. waxaana barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah nin ka mid ah ragga ugu caansan guud ahaanba Somaliland iyo meelo kale oo badan oo ka tirsan mandaqada Geeska Afrika. waa Shucayb Xasan Ducaale oo dad fara badan ay yaqaanaan. Shucayb stuudiyaha Universal TV ee magaalada Hargeysa ayuu noogu yimid. waraysigii aan la yeeshayna waxa uu dhacay sidan. Shucayb Xasan Ducaale aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gasho barnaamijkan Hirar iyo Hargeysa. kusoo dhawo barnaamijka. aad baad ugu mahadsantihiin idiga laftigiinu inaan meeshan caawa aan idinkala qayb galo xafladan ee meeshan markaa way Shucaybow waxaad ka mid tahay ragga ugu caansan magaalada Hargeysa. bal haddayntaynaan waayadan dambe iyo soo gelin xagabaad ku dhalatay adigu? anigu waxaan ku dhashay Ceergaabo. waa tay taariikhda baad dhalatay? waxaan cid kale laakiin u sheegi maayo ogow labadeenu baynu ugu koobnaanaysaa. iska caadi haddaad macal cid u sheegtay iska caadi. haya 1976 baan dhashay. 1976 waa 1976 laba kaliya waxaan u malaynayaa ka reebtay. may waxba kamaan reebin si caadiyan taariikhda kuugu way waxaad ka mid tahay ragga ugu caansan magaalada Hargeysa. caannimadu Shucaybow wax dhibaato horta ma leedahay? caannimadu inuu qofku caan noqdo horta haddaad maqashid kelmadan caan dhibaatana way leedahay. wax weyn way soo kordhin kartaa. way dhibaatada aynu ka horeyno maxaa dhibaato ay leedahay? horta dee anigu haddaan anigu kaaga sheekeeyo tayda. haddaan anigu tayda kaaga sheekeeyo daylen sida Cabdisalaan Herri oo kale nin dheer ma hiye ya ninkaaba wax ciyaal iyo iskuulla igu sara wixii kale moogtahay inayba waxaad uga jeedaa ciyaal iyo iskuulla igu sara wixii kale inay dilaan ma aniga ciyaal ahaan daylen ma fahmayaan ma garanaysaa inaan anigu nin weyn ahay inaan caynkanahay ma garanayaane iyagu waxay ii arkayaan nin yar bay arkayaan dadna haddii dee markaa af Soomaali baan kaga baxaaye ya si kale kagama bixi kare af Soomaali baan kaga baxaaye Shucaybow way taas waa xaggii dhibaatada ama qofka waxyaabaha u keenta caannimadu ee maaragtay aan wanaagsanayn maxaa faa'iido ay leedahay caannimadu? caannimadu horta wax aad u fara badan bay leedahay. waxaa aadka u fara badan waxaa ka mid ah qof la garanayo markaad tahay waxaa ku uri meel allaale iyo meel lagaa joojinaya ma jirto. caannimada kama tahay moogta dee adigu laakiin caannimadii waxaad ku darsatay Hargeysa kaliya caan kama tiid saan ka warhayo. Djibouti baad tagtay, Nairobi baad tagtay, Ethiopia tagtay, markaa dee gobolka oo dhan baad caan ka tahay marka meel lagaa joojiyaa ma jirto miya? adigu waxa ku leen meelaha lagaa garanayaa caan ka noqon kartaa laakiin meelaha lagaa garanay caan kama noqon karto. imanka Djibouti oo kale aad baanu reer Djibouti isu dhex galnay. aad baanu saaxiibo noqonay. aad baanu magaranaysa Nairobi oo kale sidaas oo kale Ethiopia oo kale sidaas oo kale laakiin meel aan lagaa garanayn caan kama noqon karto. Shucayb waxaad ii sheegtay in mararka qaarkood dhibaato ay kala kulanto ciyaalka oo kale oo dee ilmo yar kuu qaata. maxaa kuugu darnaa dhibaatooyin kaa hor yima kale? horta Cabdisalaan dhibaatooyinku ma yara. dhibaatooyinku ma yara oo dhibaatooyin fara badan way soo marayno. waxa ku leen
dee adigu waayo aragnimo waa kaga baxay waay mid iyo laba hadda nooga sheeg shacib dhibaatada haha ethoobiyan beri aan joogay Ethiopia magaalada baad joogtay Addis Ababa waay dabeedna ismaan oqoon dee sidaa dee ismaan dhex gelin markaa waay markii ugu horreysay bay ahaydaan feras walan tegay baa hadmaa Ethiopia dabeedna markaad macal dadka aad afgaranaysid ayay bay dhaantaaye dad anaad afgaranayno waxaan ku yidhi haddana ku soo weeraraya waay say kuu soo weerarayaan de adigu halkaasoo kalead iska lugeynaysayo intanaad tagsiga gaadhayso ayaa waxaan ku yidhi 500 oo kun oo qof ciyaalkii dee iskuulka ka yimid haya ayaa ku imadaya dee haye marka wala afgaranaysid haya oo kuwa halkan de waxaad tii waxaan kaga baxaa hadal kuwana kale hadal bad kaga bixi kartaa dee af soomaaliga way kalayaan haya waaradan haynugu ciyaarnaa dowlada saa aabba u kaadii waa dooran kartaa mate waay kuwa dee maxaad kaga baxaysaa waa tay markaa waxaan ku yidhi adigu af soomaaliaad kaga bixi karaysaana ma jiro waay waayo waxaan af soomaaliga uga baxayn mama garanayaan ba af soomaaliga de waa runa ya marka anaa af xabashiga ma noqon way shacaybow haddii mid kale aan ku weydiiyo waxaad iiga sheekaysay maalin roob da-ay oo dabadeedna meel eleelada aad ka baqatay inaad ka talowdid oo gabadhi deedna ay ku xambaartay bal hadda sheekadaa nooga dhaca annaga iyo daawadayaasha adigu sheekadaasi waxaan ku yidhi sheeko da-weyn bay ahayd waay sheeko da-weyn hay ayay ahaydoo markaa intaan anigu markaa soo qayilo intaan soo qayilay markaa systemkii aan meesha kaga talaabayay ayaan programmiyay anugu waa ililad markaa meel biyo mareena wax yaroo dee biyo mareena de waay anugu markaa waxaan systemkaan meesha kaga talaabayay ayaan hawshiisa waday dee waay gabadhiina markaa waxay istiri ilmahan yar meesha ka tallaabi dee markaas meesha iga tallaabinaysay way ku qaaday markaa way qaaday daneynta qaadaya meesha iga tallaabinaysay ayaan dee markaa inan bay hadee oo haya u diiramayd waay da way iga tallaabisay meeshii inantii adigu waxba adigu ma garanaysa ya waxay ku garatay inaad dee ilmo yar ahayn miya markii dambe way fahamtay oo maxay samaysay deedna mayadu haya iyadu wax badan marka hore ma sameyna anaa wax samey waay dada inantii adigu way fahamtay baan ku uri inaanan nin yar ahayn oo dee nin weyn ahayn haya halkaas adigu dee waxbaa ka dhacay baan ku uri maxay samaysay markaa ma dhulkay ku dhigtay mayadu may way tuurtayba waa tay laakiin ilaahay waxba kuguma yeelin waxba ma noqon waay iska caadi baan shacayb oo asxaabtaada faraha badan leh adduunyada kala joogta
kuwa weliba Yurub iyo Mareykan jooga xilli aad u qabooba bay imika ku jiraan iyaad ka salaami lahayd bal inay ku diirsadaan salaanta anigu horta cid allaale iyo ciddii i garanaysa horta waan salaamayaa dhammaantood meel allaale iyo meel ay kala joogaanba waan salaamaya horta gaar ahaan waxaan salaamayaa ninka la yidhaahdo xuseen bisad xuseen masaaxiib baatiin ninka la yidhaahdo maxamuud cumar yare fuwaad cumar yare مريم المرسل سهرة أحمد جامع أصحاب توردن وسلامة waxaan hubaa asxaabtaada faraha badan laga gayoon maayo laakiin haddaan si gaar ah ku weydiiyo Xuseen Bisad Xuseen masaaxiibatiin adiga waa tay xuseen saaxiibkay waay hadba saaxiib la xuseen hargeysa markuu yimaado kala ma israacdaa Shucaybo waay israacnaayo adu xuseen saaxiibkay isaguna hay waa nin aad u dheer adiguna waxa tahay nin aad u gaaban marka sheekaysanaysaan oo kale ma mobile-ka ku wada hadashaan waxaan ku dadku waxaan ku system lagu wada hadla lama waayo waay system lagu wada hadlo hay lama waayo waa hagaag Shucayb Xasan Ducaale aad iyo aad u mahadsantahay sida ay dad fara badan